kow toban howl maalmeed oo aad ku noqon karto qof maskax badan aadna ku horumarin kartid naftaada. waxa ay rumaysan yihiin qayb badan oo dadka ah in garashadu ay tahay hibo rabbaani ah oo aan marnaba la kasban karaynin, balse aqoonta casriga ah iyo cilmi baarisyo cusub ayaa inoo sugaya taa cagsigeeda oo ah qofku inuu kordhin karo garashadiisa. markii uu yahay qofku mid diyaar u ah inuu ku sameeyo naftiisa horumar isagoo oo ka kasbanaya wax akhris, barashada wax cusub iyo kasbashada aqoonta uu u yeelanayo xirfado kala duwan, waxaa maragma doonto noqonaysa in garaadka iyo garashaduba ay kor u kacayaan. haddaba sidee ayaad u joogteen kartaa maalin kasta kordhinta garaadkaaga iyo garashadaada si aad u noqoto ruux bulshada ka dhex muuqda? waxaan kuu hayaa 10 xeeladood oo aad ku kasban kartid. Number 1, u gal internetka si garaad leh. ha ku lumin waqtigaaga oo dhan isticmaalka baraha bulshada bilaa faa'iido. internetku waa adduun wax walba leh, waxa uu leeyahay bogog aqoon kororsi aad ka samaysan kartid. haddaba geli waqtigaaga qayb ka mid ah akhrinta iyo booqashada bogagga aqoonta ee kuu siyaadin kara aqoonta aad u yeelan kartid wax cusub. Number 2, qor mar kasta waxa cusub ee aad baratay. u gaar yeel qayb waqtigaaga ka mid ah qorista iyo xasuus reebidda waxyaalaha cusub ee aad baratay, aragtay ama aad maqashay. hana ku ilaawin buugga waraaqihiisa, balse waqtiyo kale dulmar si ay u degto maskaxdaada hoose. Number 3, sameyso qoraal hawlqabasho ama to-do list si uu u ahaado waqtigaagu mid diiwaansan oo ay faa'iidadiisu ka badan tahay lumitaankiisa. waxaa lagama maarmaan u noqonaysa noloshaada dhigaal. buugyarahan waxa uu yahay mid kicinaya oo xamaasad gelinaya, xoojinayana labada u muhiimsan naftaada ee ah kalsoonida aad wax ku qaban kartid iyo farxad gelinta naftaada guusha kadib. Number 4, ciyaaraha maskaxda furfura. ciyaaraha u baahan maskax dhaqaajinta iyo xalinta halxiraalayaashu waxa ay ka saacidayaan maskaxdaada in ay ahaato mid firfircoon mar kasta. dheel ciyaaraha garaadka u baahan sida dheesha askariga iyo boqorka ama jeeska, sudoku iyo kuwa la midka ah. isku day inaad barato usbuuciina aad mar ciyaarto. Number 5, la fariiso kuwa ka aqoon badan lana sheekayso. la qaadashada waqti qof ka aqoon badan ama ka khibrad badani waxa ay ku dhaxal siinaysaa ogaansho joogto ah oo ku saabsan arrimo aadan fursad iyo barasho aadan u helaynin, sida dhacdooyinka taariikhaha leh, fikradaha aqoonta iyo kasbashada xirfado aad ka baranaysid qof aqoon durugsan u leh. waxaa suuragal ah qofka kaa garaadka fiicani in meelaha uu awoodda ku leeyahay ay yihiin isla meelaha aad daciifka ku tahay adigu, waana fursad aad wax kaga bedeli kartid ee ka faa'iidayso joogteena. Number 6, akhri wax badan. haddii aad maqli jirtay mahmaah Soomaaliya oo tiraa war la hel yaaba tala la hel, hadda dunida waxa ay ka tahay wax la akhriyaaba tala la hel. markastoo aad wax akhridid waxa aad barataa oo aad la kulantaa wax cusub, xogo cusub iyo war cusub. xitaa habab wax loo xaliyo oo hor leh ayaad heli kartaa. waxaa laga yaabaa in akhriska badani uu kugu simo in aad heshid oo aad ogaatid waddada aad haysid in ay tahay tii kugu qumanayd iyo in kale. waxa aan talo lama huraana aan kugu siinayaa badii wax akhriskaaga iyo xasuus reebidda waxa aad akhriday waxa ay ku dhaxal siinaysaa koritaanka garaadkaaga si joogta ah. Number 7, u gudbi kuwa kale. haddii aadan kari karin in fikradaada aad u sharaxdid ilmo yar oo 6 jir ah, ogow taasi waxa ay la micno tahay in aadan adigu si saxan u fahmin. Albert Einstein, hubi inaad si saxan wax u fahantay, xogaha aad baratayna ay si saxan u degeen caqligaaga, adiga oo ku ogaanaya u gudbinta kuwa kale una sharaxaya ogaalkaaga si ay fahmi karaan kuwa uu ka daasoon yahay. Number 8, dheel ciyaaraha jirdhiska. caqliga wanaagsani waxa uu ku jiraa jidhka wanaagsan. si la mid ah sida aad u doonayso in aad u kobciso garaadkaaga, ugu dadaal dhisidda jidhkaaga. tusaale, jimicsiga arooriyo horaada la sameeyo waxa uu yareeyaa walwalka iyo caajiska, waxaana uu kor u qaadaa firfircoonida jidhka maalintaasi oo idil. Number 9, baro luuqad ama lahjad cusub. waqtiyada aad fursadda leedahay ku dhiirigeli naftaada inaad barato luuqad cusub si uu u kobco garaadkaagu. 10, u gaar yeel qayb waqtigaaga ka mid ah nasniino. u ogolow naftaada degenaansho iyo nasasho inay ku samayso meel degan. tani waxa ay kaa saacidaysaa inay hesho maskaxdaadu nasniino.